gebigeedu waxay ku noolayd waa caano cad iyo caano ay ku noolaan jireen marka caanihii markaynu soo qaadano waxa weeye waxyaalaha ugu muhiimsan ee nafaqada leh aadka jirka bini'aadamka wax ugu tara marka Soomaalidu waxay ka sameyn jireen in bakteeriyada ku jirta meesha ama weelka lagu lisaayo inay istaral gareeyaan oo ay macnaha ka dilaan wixii germs ay ku jira ay isticmaali jireen marka farsamooyinka caynkaas ee primitive-ka ah inagu isticmaalaynay ayaa waxa loo bedelayaa habab casri ah oo aynu kaga faa'iideysano caanaha production ka caanaha kaasoo ama pasteurization lagu sameeyo ama sterilization lagu sameeyo ama cooling lagu sameeyo marka waxaan idin rajaynayaa